qaraxii dagaaladii sokeeye ee sagaashamaadkii ayaa dad badan oo Soomaali ah u hayaameen dalka dibadiisa. waxaa maanta suurtagal ah in waddan kasta oo aad tagtid aad ka hesho qof ama qoys Soomaaliyeed. sida la wada ogsoon yahay ayaa bulshada Soomaaliyeed tahay bulsho isku dhex nool kalena maarmin. horay ayaa Soomaali u tiri dabci waa maguuraan. waxaa Soomaalida caado u ah in waddan kasta oo ay joogaan ay ka tagaan hal xaafad, tusaale ahaan Islii, Nairobi, Ohio iyo Minnesota cariga Mareykanka, Ringaby, Sweden, Streatham iyo Wembley, London, iyo weliba Galqob oo barnaamijkan ku saabsan yahay. intaas waxay ahayd oo kaliya inaan magacaawno qaar ka mid ah xaafadaha Soomaalida ay degto. xaafadda Galqob ee ku taala caasimadda labaad ee waddanka Denmark ayaa waxaa deganaa in ka badan 3,500 oo Soomaali ah. Cabdulqaadir Aadan ayaa ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Galqob. Cabdulqaadir oo ah nin dhalinyaro ah ahna aabe 3 carruur leh ayaa gogol noo dhigay beer gurigiisa ka dambaysa. aniga waxa ila tahay dadka Soomaalida waxa ka mid dadka ajaanibta maxaa la dhahaa dego xaafadaha isku aruursado. sabab badan ayaa arintaas ugu wacan. sababta koowaad waxa waaye qof oo qofka ka saay ayaa xaafad soo degay. xaafadu iyo qof ka helaya wuxuu isleeyahay guri fiican meeshan ku yaal, guryaha qaabka u dhisan yihiin iyo waxyaabahaas aad u fiican yihiin. qof saaxiibkiisa ama ay qaraabo yihiin ama daris ama ay iska saayaan uu sheegay wuxuu leeyahay xaafadaas xaafad fiican waa, guryaheeda top waa, aad u fiican yihiin. qofka kale marka waxa galaayo damac ah xaafada hebel uu degan yahay oo lagu sheegay xaafad fiican inay tahay u soo guur adigana. saasoo macnaha hadda kale qof kale aniga hadda kula hadlay waxaan deganaa centerka magaalada, guri oo gaamil oo duq ah deganaa. gurigaas marka wuxuu ka koobnaa 2 qol iyo fadhi. musqusha waxa la ekeed 1 mitir in ka yar, labada qolna isku furnaayeen. marka dad marti haday ay imaadaan ama qaraabo ama saaxiibo ah gabdhihii iyo wiilashii haddii martida ay yihiin naago iyo rag, macnaha ma qaab oo maxaa la u kala gabadaan ma laha. gabadhii musqusha galayso ama wiilkii musqusha galay iyo wixii dhan la arkaya macnaha. laakiin xaafadan hadda Galqob oo kale aniga yara saaxiibnayna xaafadan deganaa asaa ii amaan wuxuu dhahay xaafadan xaafad aad u fiican waa imaad gurigiisa arkay waa ku qancay anigana waa u soo guuray. hadeertaan dad marka ay imaadaan musqushooda gaarkay leeyihiin. reerka aniga xaafadeedo kale dadka guriga rasmiga sida rasmiga u nool sida ilmaha iyo xaaska iyo qolkooda iyo musqushooda gaarkay leeyihiin. dadka isma arkaan waa la kala nafisaya macnaha. Cabdulqaadir Xasan ayaa isna ka mid ah dhalinyarada magaalada Aarhus. haddaan ku bilaabo faa'iidada ay leedahay xaafadan waxa weeye ilmihii yaryara oo helaya dugsi quraan iyo meelo ay isku arkaan oo mar walba ay ku sheekaystaan iyo familiyadii Soomaalida ragga odayaasha ah iyo macnaha oo wada sheekaysanayo. marka aad iyo aad ay ciyaalka yaryar uga faa'iidaan, dugsi ay aadaan, tafsiir wax walba si fiican baa loo abaabiyaa. marka aad iyo aad ay u fiican yihiin xaafadan macnaha ilmaha yaryar oo ku nool iyo dadka ku nool Soomaalida ah. qasaaradan waxa la dhihi karaa ilmihii dhalinyarada ah dadka for example 14 jirka 15 jirka ayaa ugu dhib badan raggaas macnaha maxaa yeelay waxay raacaan ciyaal kale oo meelahan halaysan oo carab iyo waxaas oo kale ah. marka doorka ay gelinayaan meelaha xun bay u wadayaan, meelaha discotheque iyo waxyaalaha xun bay gelinayaan. aniga ahaantayda dhalinyaro badan baa mar walba la hadlaa oo iraahdaa nimayo howsaan waa laga fiican yahay, waa inay masaajidka imaataan, goobaha quraanka iyo Ilaahay ka cabsataan. meeshan adduunka lagu ma sii noolanayo. adiga magacaa Maryam Abqaadir. hooyadan magaceed Sahra Qarijimiso. ma sha Allah. okay adina magacaa Tasniim tu Arab iyo gawar Soomaali. kaalin sida ay gabdhaha Soomaalida qaybta waxbarashada ka qaataan. dad badan wax barto qaar xidhigtaan dugsiga dhexe, laakiin dad badan dugsiga sare iyo kan oo dugsiga oo caafimaadka. okay adiga hadda iskuulkee dhigtaa? hadda iskool caadi ah dhigtaa. galaaska 10aad
okay maxaad waxsanta marka sanadka dambe maxaad ku qorshaa inaan dugsiga sare galo okay wala okay qeyr ku soo dhawaasad أنا هاد أنت كلية أنا كسر مقالة أو شقيستو أو شقوين في عن هسه أما إسكال في عن أو جامعة يفيدكون أودنيلس يو إسكال في عن دكتور ما ملين كرت معنا أنا هاد كلها الله أنا حاس كي إسكال فيدكون عندنا معنا مركز جل قوم نودكنا يا فيدكون وحوا وحبرصة صار معنا دكسي صار وحكي صار معنا أنا هاد سمناري مكان دكتور حاس كي إنه هاد دكتور سوشيال سوني سكول أو ميديال بوي معنا marka anigan iskoolka waxaan dhigtaa pedagogy seminariumka marka waxaan aaminsanahay macnaha qof walba wadanka meel uu ka degan yahayba anaa ku faraxsanahay xaafadda sanadihii u dambeeyay ayaa qoysas badan oo Soomaali ah ka guureen xaafadan iyaga oo u guuraya ariga Ingiriiska dad badan oo Soomaali ah waxay u guureen Ingiriiska meelaha sababo kala duwan qaar shaqay raadsadeen waxay aamineen wadanka in suuq shaqada uu xiran yahay qaar waxay raadsadeen waxbarasho qaar waxay raadsadeen Ingiriiska inuu yahay wadan weyn oo luqad oo caalami looga hadlo sababo badan ay dadku u guureen lama dhigi karo hal sabab kaliya u guureen macnaha Soomaali meesha ay isugu timaado ayaan kaftanka iyo forjada midna ka marnayn bariiskii iyo qudaartii heerka sare ahayd markii la isku ogaaday ayaa kaftan la galay ayaan dheedo xal dhaay qisada adduunka xamar ka dhacday waxa la tuug oo caadi tuugayaasha Soomaaliya oo guriga inta ka soo boodaan caadi wax iska xadi jiray tuugaas wuxuu u soo ka soo boodaa la darbi nin oo maxal ah dadkan oo Shangaan iyo maxal ah xamar weyn iyo dadka deganay oo reer banaadir rasmiga macna bas tuug markuu ninka arkay inuu ordo damca waa laga daba ordo la soo qabta tuug marka wuxuu yaabano waa la soo qabta arigaarka ordin intee u socotaa gambar arigaarka gambar u keena gambar lagu fariisay arigaarka bun u keena bun gaxo markaas uu dhamaa ani tuuga ah waa ku soo dhacay adina gaxo iyo fadhiisa dhoosa markaas wuxuu dhamaa may arigaarka wax ma ogid maalmahan dhan waxaan arkeenay tuug oo dadka buntu ku dilaayo oo indha gaduud ah oo maxaa la dhahaa tuugi xalaash ahaay oo dadka u soo dhici jiray arnabada soo socota ar ilaahu mahada